maanta waxaa dhacay in nin argagixisada ka mid ah oo inta jaaka soo hubeeyey uu ku tuuray ciidanka booliska Soomaaliyeed sarkaal ka mid ah ku dhaawacmay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad siiyo isagiina ninkiina waa baxsaday oo markuu jaakada tuuray waa la qabtay marka ilaahay sarkaalkaas caafimaad siiyo waxay ka mid tahay khataraha cusub oo lagu soo kordhay in qof inta jaakad soo xirto oo ku dhex tuuro dadka uu ka cararo waana wax u baahan in laga qaato feejignaan cusub taas markaan ka soo gudbo sida aad kula qabtaan dowladdu markii ay lahayd soo baxa iyo isu imaadka faraha badan waa in la joojiyo oo la yareeyo oo laga bilaabo golihii wasiirada in lagu qabto zoom waxaa lagu dhisay qiimayn la sameeyey oo xag caafimaad u badan iyo xag amni u badan qiimayntaas la sameeyey oo aad loo soo daraaseeyey waqtina qaadatay lagana wada fadhiistay ayaa lagu saleeyey in isu soo baxyada iyo isu imaadyada la joojiyo wixii aan laga maarminna aad loo yareeyo qiimayntaas ayada ah wax ka dambeeya ma jiraan sideedii bay u taagan tahay weliba waxaa dheeraad ah in uu soo kordhay khatarta caafimaad soo korortay oo sida aad ka warqabtiin dhammaantiin warbaahintu ka warqabto dhimashadii coronavirus uu soo kordhinayay ee aad iyo aad u soo badatay oo wasaaradda caafimaadka iyo madaxda guud ahaan xukuumaddu habeenan maalin aysan nasan oo lagu mashquulsan yahay sidii dadka loo badbaadin lahaa waa idinka maqlaya mar walbaba qaylada ambalaasku inay habeen maalin taagan tahay taasi waxay nagu sii adkaynaysaa marka in la sii yareeyo isu imaadka in la sii yareeyo wax kasta oo dadka isu keeni kara si khatarta caafimaadku ay u yaraato middaa amni ee maanta ka hadlayna ee qofkaa dadka jaakada tuurayana iyaduna waa dhib nagu soo kordhay oo nagu sii dhiirigelinaya aanaan dhihi karin bulshada Soomaaliyeed meel hees ugu timaado waayo mas-uuliyad baa na saaran mas-uuliyadda na saaranne waxaan u welwelaynaa sida waalidku u welwelo carruurtiisa u welwelo ninka mas-uulka ah bulshada dhan ayuu waalid u yahay sida waalidku uga welwelo carruurtiisa oo khatar kasta ama ha muuqato ama ha soo socoto ama ha filo oo uga hortegayo oo waxa ugu badan oo dadaala u bixinayo ayaa looga baahan yahay dowladdu inay intaasoo kala bixiso waxaa dhici karta dadka kaloo mas-uuliyaddu saarayn inaysan saa u fiirin inaysan saa u arag oo ay ayagu u arkaan dana ay ayagu leeyihiin oo gaar oo u muuqda inay ayagu gaarsadaan hadhowna mas-uuliyadda anaa nagu soo celiyaan sida aad ka warqabtaan bannaanbax guud ahaan waa la joojiyey ama ha naqdo mid dowladda lagu taageersan yahay ama ha naqdo mid looga soo horjeedo bannaanbaxna sideeda dowladduna waa soo saari kartaa dadka mucaaradkana waa soo saari karaa wax weyn ma aha in dowladda soo saarto ama mucaaradku laakiin kulligood waa sharci darro ama dowladda ha lagu taageero ama ha looga soo horjeedo bannaanbax oo dhan waa sharci darro ciddii samaysane hadday ayadaa isxilqaanto maahay dowladdu uma dirin mana oggola gaar ahaan magaalada caasimaddu waa ka sii duwan tahay gobollada caasimadda waxaa jooga mas-uuliyiinta dhammayd waxaa jooga dowladdii waxaa jooga safaaradihii hubka ugu badan baa yaalla mudaaharaad hub wata oo hub dad hubaysan wataan na sideedaba lama oggolaa karo haddii ay dhacayso arrintaasi qiimayn kale iyo cudurkoo naga yaraada iyo dhibaatadoo yaraata iyo arrinta amniyoo yaraata iyo qiimayn kale unbay ku imaan kartaa go'aanku waa sidiisii qodobka kale wuxuu yahay dad waxaa jira isxilqaamay sidaad ka ogtiin baaqi bare ministerku uu soo jeediyey maalinta jimcaha oo uu ku baaqa wada hadal inuu furan yahay cid walba in lala hadlo inay furan tahay cid walba oo wanaag doona wax kasta la iska afgarto baaqaas bare ministerku soo jeediyey sidiisuu u taagan yahay saacaddan iyo saakay iyo xalay iyo habeen horena bare ministerka iyo wasiirada iyo intii kale oo mas-uuliyiina waxay ku jireen in lees afgarto oo laga wada hadlo waxa taagan welina waa socotaa cid albaabkaas waa furan yahay sida bare ministerku u baaqo u furan yahay waa haddeerta saacadaha aan ku jirnana wada hadalku waa socdaa waana waa hadal see wax lagu wanaajiyaa see wax lagu toosiyaa ma aha wax go'aanka dowladda wax looga bedelaa maaha go'aanka dowladdu go'aan iskama qaadan karto haddaan daraaso iyo qiimayn aan wax lagu soo dhisin marka aad iyo aad aad u mahadsan tihiin dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan ugu baaqaynaa xilli waxaan ku jirnaa warbaahinta cid walba ay ku gaarsiin karto fariinta ay wado maanta warka hadda aanu ajeedinayo mudaaharaad uma baahnin mudaaharaad
warbaahintiina anaa ku filan inaad gaarsiisaan malaayiin Soomaaliyeed inaad gaarsiisaan intaana iga filan uma baahan soo baxayna waxaan ugu baaqaynaa marka guud ahaan dawladda iyo dadka kale dawladda ku jiraan oo aan dawladda ka tirsanaynba inay adeegsadaan warbaahintan hadda waxaan arkaynaa 40 kaamira ay hortaagan 40 kaamira waxay ku filan yihiin 5 qaaradood wixii fariin oo jira inay gaarsiiyaan wax baahiyo loo qabo maanta inaad dad isu keeno oo aan ida aniga dad isu ka imaada si aan u hadlo haba yaraatee ma jiraan dadka aan u baahana waa kaamirooyinka bis aan u baahana ayagaasaa warkii gaarsiin kara meel kasta waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqayaa guud ahaan dawladda anoo ka bilaabaya mas-uuliyiinta dawladdan ka bilaabaya kuwa kale dawladda ka tirsanaan ka bilaabaya isu soo bax lama ogola qofkii war qaba qofkii fariin qaba caburin ma jirto waa furan tahay wax caburin leeraa ma jiraan wasaaradda amniga oo aanu mas-uul ka ahay haddii ay jirto qof la caburiyo hadli weyda waa noo sheegi kartaa ma jirto caburin warkiina ku gaarsiiye warbaahintan sharafta badan meel walba iga gaarsiinaya aad iyo aad u mahadsantihiin midda koobaad amniga qofka isqabriya maanta jaakada wakee fakaday sidee waa shaakada cusub dadka Soomaalida amniga marka laga hadlayo qof jaakada tuura kadibna uu baxsado see ku dhacday qofka badalka la wadaag midda labaad muhaarad ku banaan dakhal ilaamiyeen hore ilaamiyeen dhibaata ka eetay ma jirto oo wadada looga bixi karo xaaladan adag ee dadka Soomaalidu ay aad uga walaacsan yihiin oo reysaan waa maasanta horta dadka kooba ninka jaakada inuu tuuro ku arkeenada asaaska isagaa tuuray laakiin sida noo sheegeen oo kaliib hadda la taagan yahay waa la soo qabtay waa la xaray taas horta waa taas dawladda mas'uuliyaddeedu waxa waaye inay ka hortagto wixii dhibaato keenaya haddiise ay dhacdo in dhibaatadii qofkii la aday haddii hadda qofku dharbaaxo dharbaaxada booliska siima ogeyn inuu ku dharbaaxayo qofku siima ogeyn laakiin markuu ku dharbaaxa la rabaa inuu kaa qabto marka shaqadoodu waa qabsadeen waana ku ammaanan yihiin waana mahadsan yihiin booliska iyo nabad-sugidda iyo militariguna waa kuwa aan habeen iyo maalin ku jiifno oo shaqada ugu sharaf badan uguna wanaagsan haya oo dhammaanteen naga karaan badan sharaf badan waa inaan ku mahadinnaa waa inaan ku ducaynaa waa inaan ogaanaa inay u taagan yihiin nabadeenna habeen iyo maalin idinkoo warbaahintana waxaa laydinka rabaa waddanka dhismihiisa tiirar ka jirtiin waa inaad wax bulshada anfacaya oo dalkeenna dhisaya oo dib u celinayn oo bulshadu u wanaagsan inaad ka shaqaysaan haddii kale warbaahintu waxay isu beddelaysaa haddaysan taa ka shaqayn wax ka dhinac kale aadaysaa waana ku kalsoonnaa 100% warbaahintana saaxiibaa la nahay dawladduna waa la saaxiib waana ogtihiin bare minister Roble inuu shan wasiir oo ka tirsan warbaahinta uu sameeyey taas waa qodobka labaad banaanbixi dawladdu qiimeyn iyo daraasay ku dhistay go'aankaas wax iska beddel ma jiraan haddii qiimeyn dambe dib loogu noqdo haddii dawladdu ay qiimeyn kale ku noqoto si kastaba ha ahaa ama wadada ku timaado ama caafimaadka la qiimeeyo iyo amniga ha noqoto waa ka hadli doonaa laakiin warku waa warkii hore wasiir waa mahadsantahay waa Faadimo Cabdiqaadir Dalsan TV soo dadku waxaad ka wacyigelinaysaan COVID-19 banaanbixii aad joojiseen toddobaadkan ka soo gudubna wixii ka dhashay waan naqaanay idinkoo dadka badbaadinaya haddana mucaaradku way horkacayaan dadkan oo banaanbixu way ku dhawaaqeen oo sheegeen inay ka dhaweynayaan Muqdisho ka qabsoomi doona sidee dadkaas badqabkooda ku badbaadinaysaan mise markaa xabadaad ugu jawaabaysaan badqabka horta kow adinka laftiina u sheega bulshada u sheega war bulshooy warbaahintii annagaa codkiina qaadayna annagaa fariintiina qaadayna dhibaataha abuurina caafimaadkiina khatar ha gelina amniga khatar ha gelinina walaalayaalow guryihiina jooga fariin wixii annaga noo dhiibta idinku badhaca badqabka dadkaas sideed ugu jawaabaysaan maxabada mudana wasiir waad mahadsan tahay magacaygu waa deeq macalin waxaa ka socda kitaabkiisii waxaad sheegtay in gebi ahaan la joojiyey wax banaanbaxaysa dalka ka dhici karin mucaaradkuna waxay sheegeen banaanbax inuu dhici karo ujeeda gacmo gaaris waayo ma waxaa rabtaa markale inaad xabad ku ridaan mase xal kale oo ismacaan doontaa horta markii hore warka aan arkado annagu banaanbax kama hadlo waxaan ka hadlay isu imaad oo dhan golaha wasiiradan ka bilaawna zoom aa lagu gelaya idinka hadda isu imaadkiina qaabka laftiisa waa la isku haystaa laakiin annagu dee wacyigelin baan wadnaa moogiyo sida wax raali kama yahay wixii duruuftu keento ama markaa kooban waaba la garta laakiin annagu banaanbax marigaa mabaan ogeyn cid naga soo codsatay cid nala wadaagta maba jirin waxaan ka hadalnay isu imaadan ka hadalnay ama ha noqdo mid xafiislada dhexdiisa ka dhaca ama mid banaan ka dhaca qalabka lagu hortagay COVID-19 حتى طلبات الدولة والخارج. أنت أمني الكوب حق قمنا. أنت أمني الدكتور حق قمنا. ما صدق. وزير المكتب وإنه بهذا إن شاء الله معارض ملكنا كان أنت مشكل. هذا واني كان لدي واني أركي هذا ولا هذا هو السعودية بريم الإسلام كبار إلى هذا نواس السعودية وهذا الباب كيس المحرة وهذا سوان وانا واحد ما تعرف. وزير.